sheegeen inay yihiin dad dhan walba ka guulaystay cadowgoodiina cagta hoosteeda geliyey. waxay taas sabab uga dhigeen maadaama oo doorashadii deegaanka dib loo dhigay oo uu abiye ku fashilmay inuu Axmed Shide ka dhigo madaxweynaha deegaanka Soomaalida. Axmed Shide ayaa horay dad badan oo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ah ugu sheegay inuu abiye u ballan qaaday inuu ka dhigi doono madaxweynaha deegaanka Soomaalida, taasoo muddo badan ku dhacaysay dhagaha gulwadayaasha Mustafa Cagjar oo ilaa heer quus gaarsiisay iyo inay hadliba waayaan islamarkaana ay iman waayaan fagaarayaasha fadhi ku dirka ee siyaasadaha lagaga doodo. balse hadda doorashada dib loo dhigay darteed u arkay inaysan hadalkii Axmed Shide waxba ka jirin oo uu ahaa mid uu suuqa iska soo gashaday. guusha keliya ee uu Mustafa Cagjar gaaray ayuu sheegay inay tahay in ugu yaraan 5 jeer oo abiye isku dayay inuu xilka ka qaado uu ku dhici waayay. wuxuuna Mustafa tibaahay in isaga iyo abiye ay ku wada xidhan yihiin axmaaro oo abiye keliya uusan waxba ahayn waxbana ka qaadi karin. dhanka kale wuxuu Mustafa ku guulaystay inuu doorashada ka reebo gabadhii uu rabay abiye inay xildhibaan heer federaal noqoto waa Filsane iyo Jamaal Bakar oo marar badan damcay abiye inuu ku bedelo Mustafa Cagjar kana dhigo madaxweynaha deegaanka Soomaalida. marka maadaama aan abiye siyaasad ahaan iyo cudud ahaanba kaga adkaanay isaga iyo dadkiisii waxa keliya ee uu nagu waxyeeleeyey waa doorashada uu dib nooga dhigay. arrintaasna waxa aad uga xumaatay xulfadaydii aan sida gaarka iyo garabka ugu xidhnaa ee axmaaro oo aysan abeen ku jirin. Mustafa Cagjar ayaa hadalkaas laga soo wariyey. waa fariin ku socota beesha Ciise Weyne ee degan gobolka City gaar ahaan guddiga ugaaska Ciise iyo ugaaska Mustafa ah. waxaad ahaydeen dadku magac dheer deegaanka dhaqanka iyo faalka iyo soo-celinta gaar ahaan waxaa xusid mudan inuu ugaas Xasan geyiga Soomaalida caan ka ahaa dhulka Ciise ee Cundhufa Cadeyti iyo Garmalo. dadka saxeexay ee Ciise waxaa ka mid ahaa marka xaqiiqada laga hadlo Dr. Xasan wasiirka caafimaadka ee xilliga Cabdiiley oo uu dhalay ugaas Mustafa walaalkii inta uusan saxiixinna wuxuu kala tashaday ugaas Mustafa oo aqbalay. aadan faarax oo hadda ahaa afhayeenka golaha federationka dalka Cabdixakiin Cigaal madaxweyne ku-xigeenkii hore ee xukuumaddii Cabdiiley. marka ugaas Mustafa waxaad xaqiiqada u sheegi laadahay oo aad daaha dabadiisa uga dhumanaysaa lana aamusan tahay. haddii aad runta sheegayso dhulka adiga ayaa wax ka iibiyey oo aan daacad ka ahayn waayo hal maalin ah maxaad uga hadli weyda dhibka Ciise lagu hayo ee maanta gobolka Jigjiga ka dawarsanaya sidii Suuriyaankii kasoo qaxay dagaaladii sokeeye ee dalkooda ka qarxay. midda kale Ciise aadan faaraxow shalayna isaga ayaa dhulka bixiyey maantana wuxuu diiday inuu ka hadlo xitaa hal maalin ah. waxaa kale oo uu run ah in Ibraahim madaxweyne ku-xigeenkii uu si cad u sheegay in dhulku uu yahay dhul ay horey canfar uga dhaceen. xaqiiqada dhabta waxay tahay Ciise weliba Ciise galbeedow dhulkiinii waxaa bixiyey oo canfar ka gatay oo weliba diiday inay ka hadlaan waa ugaas Mustafa oo ah wiil yar oo 22 sano jir ah oo aan qiimaha dhulka waxba ka garanaynin. aadan faarax iyo Ibraahim Cismaan madaxweyne ku-xigeenka marka waxaad ku khaldantihiin inaad qabsataan Mustafa Cagjar oo aan waxba ka ogeyn xaaladda dhulkaas. waadna ka gardarantihiin Mustafa waayo aadan faarax ayaa ah ninka ugu awoodda saddexaad ee federaalka jooga oo horey u saxeexay dhulkaas inay canfari leedahay. marka waxaad ogaataan inuu ra-iisul wasaare abiye Mustafa ku yidhi Mustafa dhulkan ha isku daalinin. waxaa horey u saxeexay aadan faarax iyo Dr. Xasan oo ugaasku adeer u yahay. marka Ciisow Mustafa afka ka sii jeediya. Mustafa Cagjar haddii uu beenaale yahay waxaa ka been badan aadan faarax iyo Ibraahim Cismaan. dunidu waxay ogeed qabiilka Ciise oo aaga ugaas Xasan u taliyo oo agtiisa aan qori laga jabin oo Itoobiya iyo Jabuuti labadaba aad looga dambeeyo talada dalkana wax laga weydiiyo. miyaad ka waraysaan gobolkii Qorraxeeyaha iyo qabiiladii deganaa qaabka wax loogu qaybiyey yaa la qadiyey yaase wada qaatay? gobolkii Qorraxeeyaha 2 nin ayaa kala qaatay oo siday doonaan ka yeelay sadbursina sinaan uga dhigay. waa Cabdi Hurre iyo Faatax Dhagoole oo uu midna 7 degmo tunka u ritay midna 3 degmo uu sila u dilay. midka hore waa Cabdi Hurre oo la sheegay inuu ka soo jeedo beesha reer Warfa gaar ahaan Bahamagan
isla markaana meesha ka saaray beeshii reer Dalal la oran jiray hormuudka oo ahayd beelweynta ilmo magan ama reer Warfaa. waxaana maanta la baday inay taago wasiir ku-xigeen xun oo in cagtar xalaqaad u ah ku qancaan oo aysan deegaanka wax matalaada oo muuqda aysan ku lahayn. dhanka kale waxaa iyagana meesha aan waxba ku haynin beelweynta reer Farsacilmi oo qaab bahdilaad oo la dhaqmay wiilka tadaamulka ah ee in cagtar candawadaagta yihiin, isagoo halkii xil ay gudoomiyaha gobolka Qoraxay oo ay muddo 3 sano hayeen ka qaaday isla markaana u dhiibay wiil yar oo maamulkii hore Cabdiiray ka mid ahaa isla markaana kasoo jeeda beesha reer Dalal oo ah mid uu isagu wuxuu yeeriyo balse aan la oran karin saami qabiil ayuu ku joogaa. beerihii kale tirada badnaa ee ku dhaqnaa 7 degmo ee gobolka Qoraxay kana mid ahaa beelweynta reer Cabdille waxay hayaan ma jirto. qabiil walba meel cidla ayuu taagan yahay oo dhawaaqaya, wayna wada cabanayaan dhammaantood. wax u jawaabaya ama ka hoos qaadayna ma jiro. midka labaad ee shacabka 3 degmo ee Qoraxay ku dhaqan sidii cadaalad darrada ula dhaqmay ee weliba xabadda ka dhex riday beesha uu kasoo jeeday waa Faatax Dhagool oo isagu wuxuu hagaajiyay iska badaaye ka shaqeeyay inay xabad ka dhex dhacdo beeshii Bahgari dhexdeedii isla markaana toddobaadkii ugu dambeeyay dhowr ruux ay ku dhimatay dagaalka uu isagu ka dambeeyay, isagoo u hiilinaya jilibkiisa reer xamar ee uu isagu kasoo jeeday isla markaana u gaday daba minshaaro iyo BKM sida la sheegayo sanadkii ugu dambeeyay. gabagabadii iyo guraadkii hadalka waxaa weeye shaqadan munaafaqada ah ee ka taagan deegaanka waa qorshe uu in cagtar u dhiibay dhammaantood, isla markaana ay isla qaateen in wasiir walba uu wuxuu doono sameeyo, wuxuu doono dhaco, wuxuu doono bahdilo, balse aysan qaylo iyo hadal ka soo yeelin beesha uu kasoo jeedo, taasoo ka dhigan danaysi cad oo u baahan in laga hortago intuusan xididaysanin nidaamkani.